السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان قيارتيتو بان سلامي عشركان maanta wuxuu ku saabsan yahay sida aan u isticmaali lahayn mobile live CD ama DVD. Welcome to my YouTube channel. barnaamijkan wuxuu ku fududeynayaa in USB-gaaga ama DVD-gaaga ama CD-ga uu ku sheego in uu Windows-gan shaqeyna marka booting ku sameynaysid. marka saa usoo dhalin karsid barnaamijkan Google-ga tag kadibna mobile ku qor live DVD ka dooro kadibna linkiga koowaad ku dhufo kadibna scroll samey kadibna go to mobile live CD ku dhufo kadibna yes dheh wuu kusoo deg ana hore ayuu igu jiray. marka installation ma u baahnaba right click ayaa leedahay open ma dhehaysid. haddii open dhahdid wuu kaa diidaa wuu furmaa laakiin sidaa u rabto ma u shaqeynayo. laakiin waxaa laga yaabaa inaad dhahdid run administrator kadibna yes dhahdid. marka waxaa laga yaabaa inaad dhahdid right click menu ku dhufo ku guuleysato ku dhahay kadib waxaa laga yaabaa inaad dhahdid run meeshaan ku sameynaysaa in ISO-gaaga oo ku jeegarayo kan wuxuu ku shaqo leeyahay in oo USB-gaaga ku jeegarayo. marka kan aan marka hore tijaabino ISO-gaaga soo qaad. macnaha ISO waxay tahay faylka originalka ee Windows-ga uu ku jiro open ayaa leedahay. wuxuu ku dhahay virtual machine ma ka sameeyaa maya ayaa leedahay. kadib wuxuu sameynayaa Windows-gaas haddii error kuu soo qoro meeshaas Windows-gaas ma shaqeynayo canjaladaas ama ISO-ga. waxaa ujeedaa Windows-ga inuu soo kacay markaan wuxuu ku cadeynaya inuu furmaayo. kadib iska xir kadib computerkan fureynaa USB-gan noogu jiro waxaa ku jiro Windows 8 ayaa ku jiro. marka sidaan ogaano Windows-gan inuu shaqeynayo waxaan tegaynaa run this live USB kadib USB-ga noociisa soo dooranaysa sababta USB-geena waa i. markaan ku laabano USB-ga fiirsid magaci u jeeda waa i. kadib USB-ga markaad soo dooratid kadibna okay aad dhahdid kadibna virtual mayaa leedahay oo jeeda hadda inuu kusoo jegareynayo ilaa Windows installationkii stepkii dhan waa ku dhex fiirsan kartaa waa virtual machine asigana. marka barnaamijkan waxaan ku sameynayaa in aad ku ogaatid Windows-gaaga inuu shaqeynayo in kale iska xiro inuu shaqeynayo in kale. marka hore muhiim waxay tahay haddii aad open dhaho fiiri open markaan dhaho aan stepkii leeyahay haddana maro sababtoo wuxuu kaa dalbanaa mujeedid run administrator. haddaan dhib male haddaan dhinaca aqrinin aan isku dayo inaan soo isticmaalo wuxuu isoo saaraa fiiri maya fiiri error ayuu isoo saaraa. qofka waxaa laga yaabaa inuu ku dhaho si qaldan qofkan filimka iyo barnaamijka usoo sharaxay laakiin wuxuu kaa dalbanayaa barnaamijka run administrator ujeeda cilad badan soo saaray iska xir. markaad dalbanaysid waa inaad dhahdaa run administrator muhiimad waa taas. marka insha allah bidna kariim waa barnaamij muhiima ku faa'iideynayo in aad iska hagaajisid USB-gaaga hubisid CD-gaaga intaada ku duubinayo ISO-ga hubisid kulle ku jaagareeya ayuu ku sheegayaa adoo dhib dham u marin. marka insha allah bidna kariim khayr iyo caafimaad la jeedaan. assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh wajazaakum allahu khayran.